maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco ayaa maanta si wada jir ah xariga uga jaray xafiis cusub ee shirkadda Indhadeera Group ka hirgelisay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Munaasabaddan ahayd mid kulmisay guud ahaanba bulshooyinka kala duwan ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. waxaana ugu horeyntii ka hadlay munaasabadani Maxamed Xasan Xaaji Cawad oo ka warbixiyay muhiimadda uu xafiiskani leeyahay isla markaana ka mid ah mulkiilayaasha Indhadeero. isagoo ka hadlayna waxa uu yiri dhammaan mutasharrafka xafladda maanta iskuulka waa xafladii kala galay xafiiska shirkadda Indhadeera ee gobolada bariga ee qaybta raashinka iyo qaybta xoolaha insha Allah weliba ganacsiga asaasiga shirkadda Indhadeera Group waxay ganacsigeedu u kala baxaa export and import iyo dhammaan xoolaha oo ay dhoofiso soo dejinta dhammaan cuntada daruuriga ah oo dhan. shirkadda Indhadeera Group waxay dalka ka dhistay warshado maxjar real estate shidaalkii soo dejiso dhismayaal ganacsi oo ay ka bilowday dhammaan dalka oo dhan. shirkadaha waaweyn ee hogaamiya ganacsiga gobolka Somaliland oo ah shirkad ballaaran. geesa kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay maayarka golaha deegaanka degmada Burco Ustaad Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad oo soo dhaweeyay xafiiskan cusub ee shirkadda Indhadeero ka hirgelisay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. ummaddu way la shaqaynaysaa xaqiiqatan waxaan leenahay shaqadeeda isma dhinto. ilaahay waxaanu ka baryaynaa inay sideedu u socoto aanay isdhimin. gabagabadii waxaa munaasabaddan soo afmeeray gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Jariya Xayd oo halkaasi mahadnaq ballaaran uga soo jeediyey shirkadda Indhadeero isla markaana ku ammaanay inay kaalin mug iyo miisaan le kaga jirto horumarinta gobolka Togdheer. isagoo ka hadlayana waxa uu yidhi bilicda Burco labadaa daarood aan u arko labadii indhood ee deerada ee is eegaya waxa weeyaan dee waa waxa lagu faano wey. markaan arko waxqabadka qaranka ay uu sameeyey xaajigii iyo inamaduba maanta bridge baa halkaa ka samaysan Burco oo deer bridge ah oo rugniga koowaad ee bridge-kaa dhisay oo xaajigu ah ilaahay u dhaxayso intuu noolaa waa wax aad loogu mahadnaqo. inamaduna sidii oo kale ayay iminkana u wadaan. annagu ka xukuumad ahaan waxaanu soo dhawaynaynaa bilicdaa weyn ee Burco ku soo kordhiyeen. waxaanu soo dhawaynaynaa waxqabadkii danta guud ay ka qayb qaateen. waxaanu soo dhawaynaynaa danta guud inay dubna uga qayb qaataan wixii alla wixii loo yimaado awba ay fulin jireen. si kastaba ha ahaatee shirkaddan Indhadeero ayaa ganacsiyo kala duwan ku leh magaalada Burco sida warshada Taydha ee magaalada Burco, kaalinta shidaalka iyo weliba hoteelka weyn ee ku yaala bartamaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. waa Maxamed Cali Axmed Kaabe, raga telefishinka caalamiga ee Som News TV magaalada Burco.